ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Hirshabeelle oo iskaashanaya ayaa howlgalkan waxay ahaayeen mid ay ka sameeyeen deegaanada Xaaji Cali, Cadow Uul iyo Bashaqle oo ah deegaano hoostaga degmooyinka ku teedsan xeebta. taliyaha guutada afraad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Korneel Sanay Cabdulle Gaab, saraakiil ka tirsan ciidanka Hirshabeelle, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo maamulada degmooyinka howlgalkan laga sameeyay ayaa hogaaminayay si meesha looga saaro jidgooyooyin lacago aan sharci ahayn looga qaadi jiray gaadiidka u kala gudbaya degmooyinka gobolka. waxa ay sheegeen saraakiisha inay la socon doonaan xaaladda goobaha laga qaaday isbaarooyinka si aan mar kale dib loogu soo dhigin, ayna ka go'an tahay inay xaqiijiyaan sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee degmada Warshiiq. maanta iyo shalay daraad waxaan ku jirnay howlgal lagu nadiifinayo saddexda degmo oo gobolka Shabeellaha Dhexe xeebta ku taalo. sidaad ogtihiin deegaanadan waxaa ku badatay wax badan tuugo iyo maxuu ahaay niman jidka ku soo boodo. marka Ilaahay mahadiis waaye waxa uu ahaay howlgal wada jira oo degmooyinka iyo maamulka gobolka iyo militariga iyo booliiska Hirshabeelle ay maxuu ahaay ka wada qayb galeen. marka alxamdulillah si nabad ah noogu soo dhamaaday. maanta waxaan joognaa degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe si nabad ah noogu soo gabagaboobay. waa mahadsantiin gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waftigan hogaaminayo oo isbaar qaadida iyo saraakiisha militariga iyo booliiska. Axmed Meyre Makraan, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in ay tahay wax aan la aqbali karin in lacaga aan sharci ahayn dadka shacabka looga qaado gobolka Shabeellaha Dhexe. oo socodkeenu ku saabsanay maalmahan inay wadada ay maartay isbaarooyin ku soo bateen ama maartay niman habeenkii dadka dhibaatayay safarka. sida darteed marka waxaan u soo baxnay in waxyaabahaas wadada ka jiro iyo dhibaatadaas dadka dhibaatooyinkaas ku hayo in aan wax ka qabanno. alxamdulillah si wanaagsan ay noogu soo dhamaatay. xalay waxaan joognay iyo habeen hore cadale. maantana waxaan marooyna maartay Raagaceelle oo ugu dambeysay aan maartay soo gabagabeynay. marka alxamdulillah Ilaahay mahadiis waaye. waxaan rajeeynaa in ciidamada militariga dhammaan maartay maamulka degmooyinka ay hadda kadib ay aad iyo aad uga qayb qaataan waxyaabaha dhibaatada ka imaahayso dadka jidka joogsaayo oo dhibaatooyinka habeenkii ku sameeyay dadka safarka in ay maartay si taxadir leh iyo si maartay aad iyo aad u feejigan ay dadka maartay uga hortagaan. wadanka dhibaato badan ayaa ka jirto, shacabka ayagoo dhibaatooyin badan la daala dhacayo oo ay kamid yihiin maartay nimankii nabadiidka ahay oo deegaanada ay deganaan dadka ku dhibaatayhayo. dadka kale sida kale dhibaato ay u hayso abaaro ay jiraan oo saddex fasalba oo roobka u maartay iska yaraaday. dadku marka dhibaatooyin aad u fara badan ay ahay maadaama mujtamaci dhibaatadaas ay hayso. annaga meelihii dawladda iyo maamulku joogay inay dadkii dhibaato kula sii kulmaan waa dhibaato aad iyo aad noo dhibayso. waxaan rabnaa inay gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka ciidamada inta ku qoran oo qaybta maartay militariga ay iska xil saaraan sida hadda loo soo nadiifiyay inay sidaas isaga xil saaraan hawshaasna ay u adkeeyaan. wixii ayaga ka batan hadduu Ilaahay yiraahdo kaalmo ay u helayaan oo anaga garbahooda taagan. laakiin waxaan rajeeynaa inay maartay arinkaas ay ku filan yihiin waxyaabaha jidka inta yimaado ku dhibaatayay dadka inay gacan adag ay ku qabtaan. dadkuna qof kastana waxaan u sheegaynaa in hadhowt hadii qofku ay dhibaato meeshii inta u sameeyo ciidamada inta howlgal sameeyaan howlgalkii ay qof wax ku gaaraan qofaa dhibaato laga gaarsiiyay ama qofaa meeshaas laga dilay qofka dhihi doono qof waliba inuu cunugeeda uu ka xisho wadada cunugeedana oo gacanta ka qabsado. hadduu gacanta ka qabsan waayo maamulka degmooyinka iyo ciidamada inay howlgal sameeyaan meeshii dhibaato loogu geysto shacabka wadada marayo ayay maartay amar u qabaan. Cabdinaasir Socdaal, Daldis News.